So since we've been doing our campaign for Operation Restore Home via YouTube, Facebook, LinkedIn, we've had around over 700 people register and actually volunteer their time to take part in Operation Restore Home. We've whittled that down to about 70 people, so about 10%, and they come from all over the world, from places like Pakistan and China and Bangladesh and Malaysia to South Africa, the UK and the US. And we've got a diverse group of individuals, people who have backgrounds in surgery, to water engineers, to teachers. And this year we've got around 25 volunteers going to Mogadishu, and I think about 18 going to Hargeisa, and a few others scattered all over the place. And so one of the objectives of Operation Restore Home is obviously knowledge transfer, to try and get students and professionals transferring the knowledge that they've acquired through, the UK or the US system, and teach, the mainland Somalis about some of the latest practices, as Dr. Saeed has done, and also improve the quality of standard of teaching and healthcare in those areas. Another objective of Operation Restore Home is research. So what we've been doing is, the objective of the research is to try and understand what is lacking in Somalia. What are the needs in hospitals, schools, so we can make an informed decision about what steps to take, how we're going to support people, whether it's through a book drive, or more hospital beds, or certain types of medicine. So that's one of the objectives, to try and take a sample across Somaliland and Somalia and understand what the needs requirements are in specific areas. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world aniga Mahmoud Mohamed Macali Ibrahim, ahna madaxa beeraha WSSP. waxaan u socdaa wadankii si aan uga qayb qaato barnaamijka Operation Restore Home ee ay WSSP ugu tala gashay in ay ka fuliso wadankii sanadkan. waxaan u soconaa gobolada dalka annaga oo ka hirgelinayna project beeraha ah si aan u hanano soo celinta wax soo saarkii wadanka ee dhanka beeraha insha Allah ta'ala. Someone like me, it's quite an achievement, because I haven't been back to the country for over 20 years, and it's an opportunity to give back, because I've obviously gone to school and I've acquired some skills, and it's a responsibility. And I think I'm excited, slightly apprehensive, but mostly excited at what lays before me. waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa aanan ku waaninaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee jooga wadamada dibadda ee bartay fikradihii ay wadamada adduunka ka hormareen, in ay u qaadaan farsamadaas iyo ideyahaas ay wadankii ula noqdaan, oo dadkeennii ay ku kaalmeeyaan, oo ay iyaga naftirkoodu ay dareemaan in ay responsibility ka saaran tahay wadankii. sababtoo ah injineero, dhaqaatiir, agronomist ku filan wadamadan horumaray way haystaan, laakiin wadankeenni ma haysto. soo dhalinyarada wadamadan ka qalin jabiyay, cilmigiina helay, waxaan ku encourage gareynayaa, waxaan ku dhiirigelinayaa in ay cilmigii ku celiyaan wadankii. The IT camp obviously is part of Operation Restore Home, and what we're trying to do is to try and
provide IT skills to students in various universities in Hargeisa, in Berbera, around those areas, and try and teach them some of the latest technologies so they have the skills obviously to do to do stuff and also to go further in their lives and also do things with technology. This project was a joint project with Center for Employment and Education Research, particularly Wordvidir, who's obviously done a lot of work, as well as the Student Association in Hargeisa, who've helped facilitate the venue and obviously help locate students who'd be interested. waxaa ilaahay mahadiisa in maanta dhalinyaradii oo dhan wadda ku laabatay Operation Restore Home sida aan u rabnay u dhacaya soo far ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa guul inuu ku dhameeyo Dr. Cabdiqani wuxuu tagay insha Allah magaalada Hargeysa ayuu ku soo qabtay Hargeysa Education Conference sidoo kale Dr. Saciid wuxuu tagay magaalada Boosaaso wuxuu ku soo sameeyay barnaamijka caafimaadka walaalkeen Maxamuud oo hogaaminaya arrimaha beeraha wuxuu joogaa hadda wadankii caasimadda dalkeena Muqdisho wuxuuna rabaa insha Allah taala Beledweyne iyo Hiiraan gobolka inuu u sii gudbiyo barnaamijka beeraha uu qabto ilaahay uga mahadcelinayna subhanahu wa ta'ala barnaamij aan rabnay 2 sano ka hor inaan ku haminin inay professionals ki dadku wax barto wadankeena u laabtaan inaan maanta ku guuleysanay oo qaybtii dadku ugu dambeeyay ama teamka ugu dambeeyay aan kamid ahay anigoo maanta gadway ka duulay insha Allah taala ilaahayna waxaan ka rajaynayaa Operation Restore Home inuu wax weyn ka dhigo ummadeena wax weyn aan u soo qaban hadii Allah